السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة وفدك سودويتي يا أدو عسلين ما أنت نقول سودويسين مال والبول نقول سودويي لكن تي ما أنت واحد عجائب فربضان أود مجالاً أو صوب حري أو دلي قادم ويدي أو أدياب يسوع أو عدوك عارن آد بقول ما هتسنتيه وحاسب قارب وسي ما هذا قيادة يرى حالي iyadoo maraashadiyo toolmaraysa tabrajarku banaanka saxday ka tarool ka inuu mid ugu horeeyay inuu waftiga qaabilana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana taariikh qoran oo ay ceerigaaba leedahay mahadnaqa kadib magaalada ceerigaaba maanta gobolka Sanaag wanaaga nagu qaabisheen iyo nabadda ku faraadagteen ee ceerigaabo iyo soo dhaweynta weyn aad iyo aad baanu shiciliya madaxda ku mahadnaqaynaa dal ama gobol ama martay mujtamac meel degani wuxuu ku kala horumaraa caafimaad ku helaa nabad ku helaa tacliin ku helaa waa talada da'da joogta odayaashiisa inta talada haysa ama aqooyahanka ilaahay waqtiga ku beega ayaa dadka ka saaray dhibaatooyinka oo u horseeda nolol wanaagsan dadka reer ceergaabo waxay nasiib u heleen inay heleen odayaal iyo madax dhaqameed siyaasadeed ganacsato ilaahay waafajiyay inay nabad ku wada noolaadaan dadkooda dhibaatooyinka midnimo kaga saaraan kadibna barwaaqada ilaahay siiyay si aan shisheeye uga qasin nabadooda ku fara adeegay gaar ahaan madax dhaqameedka ceergaabo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Soomaali meel joogto colaadu ba ka socda meel ay Soomaali diganta oo dhan cid walba magacow nabadda iyo awoodda aad ku maamusheen u gudbiya dadka oo dhan oo duruusda loo galay odayaasha maamulka dhinacyada ugu horeeya marka aqooyahanka la dhaafo madax dhaqameedka aan ka xusaayo ee nabadda ku fara adeegay intii ay Soomaali dileysana dadku u taliyeen nabad kula fara adeegay waa Suldaan Saciid oo abtirsaday oo suldaanadii awyaashii raacay oo dadkiisa ka nabadgeliyay colaado waxa kale xusayaa dadka maamulaya maanta ceergaabo siyaasiyiinta ah oo ugu horeeyo Ismaaciil Xaaji Nuur oo waaya araga oo kala dabashay marxalado badan waxaan ku xigsiinayaa ninka dhalinyarada ee gudoomiyaha ah oo juhdi badan isagoo dhalinyarada shaqadii u horeysay qabtay ku fara adeegay inuu nabad kaga badbaadiyo oo har iyo habeen ku fara adeegay nabadana saddexda mas'uulba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana tusaale fiican doorashada waxaanu u qabanaynaa inay dadku ku walaaloobaan oo horumar ku gaaraan oo ay shantii sano la doortaba horumar si loo sameeyo ayaanu doorashada u wadaa ilaahay idinka nabad iyo wanaag bay noogu dhici doontaa halkaa u dhaafi maayo dadkii reer Sanaag miisay walaashanayaan wixii kala fadhiyo isku waraysan aad iyo aad baan marnaba ka mahadnaqaynaa dadaalka iyo soo dhaweynta iyo kala gacan caabudseen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh